tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa warbaahinta u sheegay kadib markii ay 3-0 kaga badiyeen dhigooda Leganes. Kulankan ayaa ka tirsanaa kulamada wareegga 16 ee tartanka Copa del Rey kaasoo ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu. Kulankan kadib ayuu Santiago Solari si weyn u ammaanay da'yarka reer Brazil Vinicius Junior kadib markii uu dhaliyay gool isla markaana uu caawiyay gool uu dhaliyay Lucas Vazquez. Intaas kadib macalinka reer Argentine ayaa wuxuu ka hadlay arinta ku saabsan Isco iyo in xitaa uu kulanka Copa del Rey uu ka soo muuqday kursiga keedka, wuxuuna yiri waa arin ku saabsan doorashooyin. Xaaladda ma ahan mid sahlan, gaar ahaan aniga. Mid ka mid ah shaqadeyda ayaa ah inaan doorto cidda ciyaaraysa, taasina ma ahan qaybta ugu xiisaha badneed xirfadeyda. Dabcan si kastaba ha ahaatee, macalinka Real Madrid Solari ayaa guusha uu ka gaaray dhigooda kooxda Leganes. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Real Madrid ee 3-0 kaga adkaatay kooxda Leganes ciyaar qayb ka ahayd Copa del Rey.